parts of speech waa waxyaabaha ugu muhiimsan marka aad baranayso luqadda Ingiriiska. Muuqaalkan wuxuu aad u anfici doonaa ardayda beginnerka ah mise ardayda dhexdhexaadka ah, waayo wuxuu ka caawinayaa qaabkii ay u sameyn lahaayeen jumlad, sidoo kalena ay u fahmi lahaayeen jumladani sideen u bilaabi karaa, maxaan ka bilaabi karaa, maxaan ku dhisi karaa, maxayna u baahan tahay. So parts of speech markii aan baranayno waxaan ku baran doonaa sideed shay ama 8 qaybood oo ka mid ah parts of speech. Marka hal muuqaal kuma soo koobi karno 8 qaybood, laakiin waxaan sameynaynaa hal qayb ka mid ah ayaa muuqaal walba ku qaadan doonaa 8daba, anagoo 8daba mid walbana mid ka mid ah 8daasna halal u kala dhigi doono, macnayn doono. Marka haddii muuqaalkan ku bilaabno, marka waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo noun. Waa ogahay dad badan oo meesha ku jiro way yaqaanaan nounka wuxuu yahay iyo qaabka loo sameeyo, laakiin muuqaalkan waa isxasuusin, sidoo kalena ardayda cusub oo nagu soo birtayna sidoo kale waxaan ugu talagalnay in ay wax soo fahmaan kadibna ay nala jaan qaadaan oo isku meel wada joogno. Okay, nounka muxuu yahay marka? Nounka waa name of a person, magaca qof, place meel magaceed, things shay magaciis, iyo idea fikrad. Okay, so haddii maanta lagu dhaho what is a noun, ana ahaan dadka wax yaqaan qaarkood oo macnaha wax u hormarsiin waxay dhahaan is a naming word, waa magaceeye. Okay, ina fahanteen arjana meeshaas. A noun is a naming word, waa xaraf ama shay aad magac u yeelayso. Okay, so types of nouns, marka nouns ma u kala baxaa. Okay, mid walba dul istaagi doonaa iyo waxyaabo uu ka kooban yahay iyo macnihiisa. Okay, so types of nounska qaybihiisa kala duwan. Waxaan ka bilaabaynaa marka waxa la yiraahdo proper noun. Proper nounka marka muxuu yahay? Proper noun is a name of a specific person, waa magac khaas ah. Okay, specific means khaas, oo qof magaciisa oo khaas ah ama meel magaceeda khaas ah. Markii aad jumlad ku dhex aragtana marka waa inuu ka bilowdaa capital letter, xaraf waaweyn. Hadduu Axmed yahay A waa inuu ka bilowdaa capital ah, hadduu Yusuf yahayna Y oo capital ah inay ka bilaabato Y. Okay, so waa proper noun, waa magac khaas. Muhiimaddu waxa waa inaad fahanto specific name. So specific waxa waa magaca khaaska ah. Sida maxaa ka mid ah marka Cali yaa la dhihi karaa, marka nin la dhihi karaa, gabar lama dhihi karaa. Cali. Muqdisho hal la jirto, waa specific, magac khaas ah. Amazon waa shirkad khaas ah. So wax walba oo khaas ah waxaa dhahaynaa markaas waa proper noun. Okay, ka soo gudbin marka aan imaano common noun. adigoo ka qayb macnaha ka qoy ma ii sheegay adigoo ka qaadanaya macnaha common waa wax guud. Okay, waa wax common laga yahay, wax qof walba oo wato waa tusaale, waa general name, waa magac guud. Okay, kii hor muxuu ahaa magac khaas ah, ka maxaa dhahaynaa marka magac guud. Example, boy. Okay, Cali ma soo barani ha? Cali muxuu yahay marka? waa wiil. So boy magac guud ay ka yihiin, waa wiilal. laakiin markii la galo proper marka waxay noqonay Maxamed, Xasan, Yusuf, Cali, Khaliif. So qof walba markaas, laakiin magac guud ahaan maxay ka yihiin? waa boy or amaan. City or city waa magaalo. Okay, ama caasimad ha ahaato ama magaalo hormarti ha ahaato. So city maxaa ka mid ah marka? Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo. So waa city, magac guud maxay ka yihiin? City. laakiin markii gudaha loo galo magac gooni oo magac magaalada markaas la qaadanay maxay noqonaysaa? Proper noun ay noqonaysaa. So river wabi waa marka. Wabiga marka maxaa waaye? Wabiyaashu way badan yihiin, ilaa waxay gaarayaan intaas oo wabi. So Soomaaliya kaliya meeqa ku taalo? 3 ku taalo. So 3daas markii la isku keen maxaa la yiraahdaa magacooda guud? maxaa la yiraahdaa? River, waa common noun. laakiin markii ay yihiin proper noun maxaa dhahaynaa? Jubba, Shabeelle, Daawo. So waa kala saaraynaa. Okay, kaasna waxaa waaye common noun. uma baahna marka inaad capital letter sida proper nounka u isticmaasho. Okay, aan ka soconna kan saddexaad maxaa waaye? Concrete noun ama concrete noun. You can see
or touch it. waa magac shay aad taaban karto mise aad arki karto. Macnaha waa shay aad dareemi karto dhanka taabashada iyo aragtida aad arki karto. Dhagax meel yaal waa concrete noun. Qofka sidiisa shakhsi ahaan tusaale waa qof ama book camal. Okay, so example book waa taaban kartaa waa arki kartaa, waa concrete noun. Apple waa tufaax waa taaban kartaa waa arki kartaa. Sidoo kale Apple phones, Apple laptops, cars baabuurta waa taaban kartaa waa arki kartaa. So asagana waa concrete noun. Okay, abstract noun marka. Abstract noun waxa waay an idea or feeling you cannot touch. Waa fikrad ama feelings dareen kaasoo aadan taaban karin. Okay, waa feelings ama idea fikrad aadan taaban karin. So wax maskaxdaada kusoo dhacaya ama aad dareemayso tusaale maskaxiyan ahaan ku taabanaya laakiin aadan taaban karin kor shay ahaan aad taaban karin. Maxaa ka mid ah love jaceylka waa dareemaysaa laakiin ma taaban kartid. Freedom waa macnaha xorriyada dareemay laakiin ma taaban kartid. Happiness farxadda qof maanta markuu faraxsan yahay wuxuu taaban kara maaha laakiin wax wajigiisa ka muuqata. So waa feelings wuxuu dareemayo. Okay, so collective nouns marka waxa waaye magaca ereyga marka collective marka laga soo qabto waa collection. waa 20 shay oo isku keenay oo hal magac loo bixinayo. Okay, a group as one unit waa group wax ka badan 3 ama 4 oo hal unit loo sameeyay. Example, a team of players team of players. Tusaale fiican as meenan waxa waaye team of players. maxaa qaadanay marka team soo qaadanay. So team waxa soo qaadanay tusaale waa ciyaartooyda markay waxay ka tirsan yihiin 22 ilaa 24 ilaa 28 waa team. So team of players loo isticmaalaa. Family ma qaaway family waa wax ka badan 10 ilaa 20 ilaa 5 ilaa 4. So wixiiba laba ka badan oo guri ku nool waa family. Flock wax loo isticmaalaa idaha. Okay, a flock of sheep lahaa. a flock of sheep idaha loo isticmaalaa. Idaha markii ay badan yihiin a flock of sheep al dhahnaa. waa waxay sheep maahan English ma ahan waa sheep. A flock of sheep. Okay, so a flock of sheep waxa uu isticmaalina markaas idaha. Sidoo kale waxaa jiro flowers magac erey leeyna jirto. So wax samayn doonaa kaasna collective kaas ama abstract kaas waxyaabo badan oo hadda noun kan markii aan dhameeyno kadib aad dib ugu soo noqon doonaa insha Allah. Laakiin hadda inaan fahnarna magac fahanka guud dan muuqaalka xiga aan ku soo sameeyno mid inaan dul istaagno tusaalooyin badan aan ka soo saarnaa arjayna insha Allah. So imaano marka countable and uncountable. Countable and uncountable waa wax xisaabtama wax la xisaabi karo iyo waxaan la xisaabi karin. Countable marka maxaa ka mid ah wax la xisaabi karo maxaa ka mid ah 1 apple waa dhigi kartaa, 5 apples, 2 apples, 6 apples ama 6 people. So waa wax xisaabi kartaa. Okay, uncountable maxaa ka mid ah marka rice briska jawaan bris lagu keen ma xisaabi kartaa way kugu adagtay way wax ku daahaysid waay. Water. Okay, water waa wax ka badan waxa u xisaabi kartaa liter 2 liter 3 liter 4 liter ama hal caag laakiin uma xisaabi kartid hal xabo waa waxaan isku soo koobi karin. Information lagu keenay fariin lagu keenay fariin ma xisaabi kartid. Okay, waa qori kartaa laakiin ma xisaabi kartid. So waa waxyaabo aadan xisaabi karin. Ciidda oo kale ciidda dhulka ku daadsan dayaha oo kale timaha oo kale. So stars waxa kale oo ku jiro meeshaasi soil ku jirto ciidda. Okay, so waxa waaye waa uncountable iyo non-countable. Countable iyo non-countable. So intaas waxaa marka 1 2 3 4 5 6 qaybood ama 6 shay oo 6 xabo oo kala ku kala duwan tahay ama 6 ay ka kooban tahay noun-ka. Laakiin midba ka sii kale way ka badan tahay wayna ka macnaha waa ka culus tahay. So waxaan rabaa inaan muuqaalkiisa xiga aan ku soo sameyn doono 3 meelood aan xoog saari doona waa abstract, collective
iyo uncountable iyo non-countable saddexdaas ayaa muuqaalkiisa xiga aan ku samayn doonaa soo hore u socona example of sentence example in a sentence marka wixii aan soo baranay jumladan ku keena marka okay haddii tusaale lagu keena cali muxuu yahay marka aniga hadda already waa tusaaleynay soo waxa waaye cali oo proper noun ah lives in Mogadishu okay Mogadishu marka waxa waaye idana waa proper noun okay sida hore u soo baranayba so I bought a book waxaan soo gatay book so a book is a concrete noun courage so courage waxa waaye qofka bila cabsida ah so courage qof isku kalsoon ama qof aan dareemaynin cabsi oo deganaan dareemayo abstract waay marka waa dareen okay helps people in hard time courage ka helps people wuxuu ka caawiyaa in a hard time marka qofka xaalad adag ku jiro courage ka aad ayuu u caawiyaa okay a flock which is collective so a flock in sheegay waa ido badan loo isticmaalo waa erey oo laga soo koobay is a collective noun of birds flew away so a flock of birds a flock of ships inta baan dhihi karnaa so waxaa la marka a flock of birds shimbiro badan flew away way boobeen oo meeshaan way ka boobeen okay intaas marka waxaa waaye intii aan u talagalay muuqaalka inuu ahaado laakiin waxaan rabaa inaad ka shaqaysaan exercise-kaas oo qaybta commentiga aad inoogu soo qortaan waxaad samaysaa you write a proper noun a common noun laba common ah iyo laba proper noun ah ay soo qoraysaa qaybta commentiga ay soo qoraysaa then sidoo kale two abstract noun laba abstract noun ay soo qoraysaa then is water countable or non-countable biyuhu miyay yihiin countable wax la xisaabi kara mise uncountable waxaan la xisaabi karin yes iyo no ay soo dhaysaa oo waxaad soo qoraysaa yes countable or no uncountable okay so intaas ayaan kusoo koobaya muuqaalkan haddii aad wax ka fahantay waxaan rajaynayaa inaad qaybta commentiga inoogu soo qortid ama aan kaa codsanayaa waan fahmay waxaana ku caddayn kartaa inaad fahantay inaad saddexdan su-aalood aad kasoo shaqeyso si wanaagsan aad commentiga inoogu soo qorto sidoo kale telegramkeena cashirkan waan soo dhigi doonaa qaybta descriptionka ayuu saaran yahay waad soo raaci kartaa pagekeena sidoo kale welibana tiktokeena iyo weliba whatsappkeena oo ah sida khaaska haddii aad su-aal qabto aad inoogu soo qori kartaa muuqaalkan halkaan kusoo koobayaa inaan dheereeya ma rabo inta muuqaalkiisa kulmayn waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh